su-aashaadu 2 daqiiqo waa inaysan ka badnaan su-aashaadu waa inaysan mawduuca laga hadlayana aysan ka baxsanaan saddexdaas arrimood marka aan conditionskaas aan sameeyo wasiirkan ugu hormarinayaa anigoo aaminsan federalismka inaynu maanta Soomaaliya ay tahay waxa kaliya ee lagu dhaqmi karo ee cadaalad u dhawaan kara haddana aynu ognahay markii dowladdu burburtay in qabaa'il loo kala jabay oo maamul goboleedyadu ay ku beesgarisay qabiil miyaan la oran karin in boundarieska qabaa'ilka in laga bedelo oo boundaries isku dhex jira goboleedyada lagu sameeyo taas miyaanay waari karin inay noqoto federaal waara oo qof waliba ku arko oo laga gudbo maamul goboleedyada qabaa'ilka ku salaysan for example waan soo qaadayaa gaalkacyo kale oo magaalo ah inay noqoto 2 maamul goboleed yani waxa ka fiican iyadoo oo hal maamul goboleed ay ka mid tahay gaalkacyo ayrigaaba ka mid ah magaalooyinka sidaas kale loo wadago marka anu saashada waxa weeyaan federalismku waa dhaqaya oo wax wanaagsan laakiin in laga ballaariyo boundary-ga kan ku beesgaraysan qabaa'ilka taasoo ah wixii ay isu dilay u kala yaacnay si aanan ugu noqontaa miyaan la oran karin in loo baahiyey si fakar kale oo ah in balqaabka boundary-ka gobolada ee waari kara ee ka dhigi kara federalismku inuu wax shaqeeya inuu ka fikiro waa maase waxaan ka codsanayaa inaad raacsato su-aashii wasiir Ismaaciil ee ahayd in laga gudbo ma tahay federaalka xuduudaha in laga gudbiyo ee qabiilka u kala xiran soo saas ma ahayn wasiir ma runtii doodan ka socota federaalku waa u caadi waa yar saaratay tan Mareykanku muddo dheer bay socotay warqadihii iyo doodii ka socotay Mareykanka mar kaliya ma dhamaato taas waa loo yiraahdo constitutionku waa living document maalin kasta way isbedelaysaa tan markaa haddii aynu ku heshiino sheekhuna uu taabtay haddii aynu ku heshiino sida dawada aynu qaadanayno iyo waqtiga aynu qaadanayno iyo sida aynu isticmaalayno administrative regionska siyaabo badan ayaa loo xeerin karaa for instance shirkii ugu dambeeyay dawlad goboleedyadu ay isku leeyimaanayeen galmudug lagu sameeyay 5 proposal baan u diray Axmed Madoobe madaxweyne Axmed Madoobe iyo Cabdiweli Gaasmo oo miiska soo saarta one of the scenarios wuxuu ahaa in galmudug la garab dhiga Khaatuma marka Khaatuma state lagu doorsado galmudug in Puntland iyo Khaatuma la isku barxo then regions administrative iyagu soo isku raaci karaan waliya la sacaanood oo kale ergaabiya barigo kale marka taas waa administrative marka hayaanku dego administrative ka sideen isku raacinayna regionada national iyo local waa la sameyn karaa waana nidaam fiican oo laga gudbi karo